Assalaamu calaykum asxaabta halkan waa Saciid Madaale Sports waxaad ku soo dhawaataan waxyaabihii ugu dambeeyay ciyaaraha waxaynu falanqeyn doonaa kulanka weyn ee u dhexeeya kooxaha Atletico Madrid iyo sidoo kale Barcelona. Saaxiib waxaan kaga codsanayaa inaad 100 subscribe na gaarsiiso waad mahadsan tahay. Mid ka mid ah kulamada ugu waaweyn ee jadwalka kubadda cagta Spain ayaa ka dhici doona garoonka Atletico Madrid habeenka Sabtida iyadoo Atletico ay martigeli doonto Barcelona. Atletico ayaa hadda ku jirta kaalinta afraad ee horyaalka La Liga halka kooxda Blaugrana ay hoggaanka u hayaan 4 dhibcoodna ka sarreeyaan Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirta tartanka horyaalka. Atletico ayaa isku diyaarinaysa inay wajahdo Barcelona 3 jeer 4 kulan ee soo socota iyadoo labada kooxood ay sidoo kale isku dhici doonaan wareegga dhamaadka ee Champions League iyadoo lugtii hore kulamadooda ay ka dhici doonto Camp Nou toddobaadka soo socota. Kooxda Simeone ayaa sidoo kale gaartay finalka Copa del Rey halkaasoo ay la ciyaari doonaan Real Sociedad 18 Abriil. Sidaas darteedna toddobaadyada soo socda waa kuwa aad muhiim u ah kooxda casaanka iyo caddaanka balse kuma jiraan tartanka hanashada La Liga marka la gaaro dhamaadka xilli ciyaareedkan. Atletico Madrid waxay ku jirtaa kaalinta afraad ee La Liga 16 dhibcoodna waxay ka dambeysaa hogaamiyayaasha Barcelona halka ay 13 dhibcoodna ka sarreeyaan kooxda shanaad ee Real Betis. Si kastaba ha ahaatee Atletico oo 3-2 looga adkaaday Real Madrid kulankii derbiga Madrid ka hor fasaxa ciyaaraha caalamiga ah waxay ogtahay saameynta ay yeelan karto natiijada xun habeenka Sabtida ka hor kulanka Champions League ee Barcelona. Kooxda caasimadda ayaa aad ugu fiicneyd marka ay ugu dambeysay gurigooda ku qaabisay kooxda Catalonia bishii Febraayo 2026. Atletico ayaa 4-0 ku garaacday Barcelona lugtii hore ee semifinalka Copa del Rey sanadkan ka hor inta aanan 3-0 looga adkaan Camp Nou lugta labaad balse guul wadareed 4-3 ayaa u sahashay inay gaaraan finalka. Si kastaba ha ahaatee Barcelona ayaa badisay 4 ka mid ah 5 kulan ee ugu dambeysay ay la ciyaartay Atletico oo ku jirta guul 3 gool iyo gool markii ay ku kulmeen horaanta xilli ciyaareedkan. Kooxda Catalonia ayaa sidoo kale lagama adkaan marka ay marti u tahay Atletico horyaalka tan iyo Oktoobar 2021 waxayna kulankan imanayaa 8 kulan oo xiriir ah oo aan laga badin. Kooxda Barcelona oo ay ku jirto guul 1-0 ay ka gaareen Real Vallecano kulankoodii ugu dambeeyay ee horyaalka. Kooxda Hansi Flick ayaa hogaaminaysa La Liga 4 dhibcoodna ka sarreysa Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirta inkastoo farqigaas uu u dhici karo 1 dhibic ka hor kulanka haddii ay Real Madrid ay ka adkaato Mallorca maanta. Barcelona ayaa dhalisay 78 gool xilli ciyaareedkan La Liga balse dhammaan 4 guuldarro ay qaadatay 2025-2026 waxay yimaadeen marka ay marti ahaayeen taasoo ka dhigaysa inay ka taxadaraan khatarta Atletico ee kulankan. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wuxuu dhaawac kaga maqan yahay Rafinha kaasoo kusoo dhaawacmay Brazil u muuqda inuusan ciyaari karin wuxuuna maqnaan doonaa ilaa iyo bilowga May. Andreas Christensen ayaa muddo dheer maqnaan doona sababo la xiriira dhaawac oo jilibka ka soo gaaray. Frank de Jong oo weli maqan yahay dhaawac muruqa ah balse waxaa laga yaabaa inuu kasoo muuqdo kulanka Champions League ee toddobaadkan. Eric Garcia ayaa diyaar ah oo la filayaa inuu ka ciyaaro daafaca dhexe halkaasoo Jonas Kunle sidoo kale Alexander Badle oo dib ugu soo laabteen tababarka kadib dhaawacyo muruqa ah. Marcus Rashford ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro garabka halka Joao Cancelo sidoo kale Marc Bartra sidoo kale ayaa la filayaa inay ku jiraan safka hore ee Barcelona. Atletico ayaa waxay lumisay 2 kulan ee ugu dambeysay ay la ciyaartay Tottenham iyo Real Madrid waxayna dhibaato ku qabaan khadka dhexe kulankan balse waxaa la filayaa in kooxda Simeone ay heli karto ugu yaraan 1 dhibic habeenkan. Saaxiibayaal waad mahadsantihiin ha iloowina subscribe noo saartaan.